وجدي صعد ومارت وبالله وجدي صعد دار وشكذا إذا إلا يصير لجو فلين لهاي وحيابها كصبح وحيابها لا أركي إن المارت مهم تاي سيد مارت لوجه لهاي وحلي رادو أفقلت من جريسكا وحلي رادا عدنا صوكبه moving from reactive to proactive. وحدين عيد تاجن محمد دوبو واه ماريها هيدا كهرتجا مصيبين كاسمه ملك جارسة وحاو كقريب قلي شر عالمي هو كدعي مجلة نيروبي حرون دواتنا كينيا وحنا شركني قبتي هيدا أكسفورم أور عالميها وهيدا كردوان ككوبان وحنا لو هذا طبعا الرمام مهمة وكسابسن سواء لماذا أبارها يفتح هذا محمد دوبو سودو بل شركني مهمة انت لك بو ضدك هير جارسة أدمتري سؤولية. السلام عليكم ورحمة الله. مجاعيد حالنا محمد دو آذن شركة وحوك دعي نيروبي وكدعي شركة وحملنا هدف كيس وين محاواي مالجلينتا أرمها ومصيبوين كدعان سيدي أوارها iyo musiibooyinka sidii fatahaadka biyaha arimaha sidii loo maalgelin lahaa dawladaha sare iyo dawladda hoose iyo hay'adaha samafalka muddo ku dhan 30 sano arimahaas way ka shaqeynayeen laakiin waxa la iswarsanayaa maxaa loo arkin macnaha arimihii ay qabanayaan maxaa meel la u gaari haynin faa'iidadoodana loo arkin marka waxa kamid county Garissa oo kale sanadkii la soo dhaafay act masa policy la dhaho disaster risk management policy yay hagaajiyeen policygaas ka dambana waxay hagaajiyeen act oo lacagta macnaha boqolkiiba lacagta developmentka 2% loo hagaajinayo waxa la iswarsaday musiibooyinkan way dhacaan markasta oo biyo abaarahan way dhacaan lacagta ayada ee loo qoondeeyay oo baarlamaanka la mariyay maxaa loo meel marin waayay ayaa su'aalaha la iswarsanayo number 2 waxa la iswarsanayaa macnaha hay'ada samafal ayaa joogan meeshan oo donors oo maxaan dhihi karaa oo hay'adaha samafalka lacagahan ay soo dhiibaan hay'adahan samafalka maxay wax u qaban laayihiin marka waxyaalaha number 1 ka la iswarsaday oo maanta shirkan afar county waaye Marsabit, Tana River, Nairobi iyo Garissa County afarta waxa la iswarsaday waxaan malaynaa fatahaad u dambeysay Nairobi ahayd maalin hore floods dhacay dad badan ayaa ku dhintay marka maxaa wax looga qaban lahayd dhahay number 1 arintii soo baxday waxay noqotay macnaha governance issue lagu sheegay maxaa kamid macnaha madaxda oo politicalka ayaa sidii ay wax la rabay inay u qabtaan ayaan u qabanaynin macnaha ayay shirkan ka soo baxay county-yaasha way ku kala duwan yihiin county-yaal maxaa jirta shaqadoodii haastaan oo fiican iyo county-yaal aan haysanin number 2 financing-ka macnaha sida loo maalgelinayo sidii la rabay ee u dhacaysa lama aho macnaha waxaa la rabaa lacag masa dhaqaalo loo dhigo fatahaadan oo si gaar ahaan loo dhigo macnaha county-yaasha wali may gaarin macnaha county-yaasha emergency fund way haystaan laakiin wax macnaha aan dhihi karo disaster risk management fundki county-yaha afarta county ma qaban marka macnaha waa in activation lagu sameeyo disaster risk management fundki loo hagaajiyo oo meel loo dhigo oo reinforcing wax la dhaho macnaha lacagtaas aan la daari karin oo only waqti la isticmaali karaa waqtiga abaaraha waqtiga disasterga for example haday dhacdo fatahaadaha ay dhacaan masa dagaala oo sakeeyo ay ka dhacaan masa cudurraha sidii maaragtay beer hore cudurkii noo imaaday oo kale oo macnaha pandemics diseases kale oo lagu hortagi karo haraka faafo marka arimihii go'aamihii laga soo gaaray waxa waayay governance-ka in laga shaqeeyo finance-ka lacagaha laga shaqeeyo coordination isku keenka macnaha coordination arin kale oo muhiim bay noqotay coordination-ka national government iyo county government iyo hay'adaha ayadana laga shaqeeyo marka policy-ga la hagaajiyana in la meel mariyo oo shelves kale iska dhigan oo meel u yaalin oo gabanayaasha imaanayeen masa kuwa cusubba la tuso governor masa structure-gaasi lagu shaqeeyo mid kale waxa waay CSG-ga masa county steering group-ka oo county-ga hadda lagu maamulo sharci kuma macnaha kuma yaalo masa sharci ahaan macnaha maamulkaas sharci ma qabo waa in sharci loo hagaajiyo sida Garissa kale waxaan hagaajinay county and partners and donors coordination policy waa sharci cusub wuxuu naga caawin doonaa sida loo maamulo hay'adaha
samafalka sida loo maamulo dowladda sare iyo dowladda countiga sida iskula shaqeyn lahaayeen waqtiyaasha musiibooyinka ay jiraan marka arrimahaas intaasaan maanta ka shaqeynay wixii kalena waxa u baahnaa midda kale oo recommendation ka soo baxday musiibooyinka waxay ku dhacdaan dadweynaha waxaa la rabaa enhanced dadweyne oo strengthen capacity maskaxiyan dadweyne oo qabo akhris oo arrimaha musiibooyinka sidii ka hortaga loo bari lahaa dadweynaha macnaha community strengthen community loo baahan yahay number 3 waa infrastructure maxaa waaye waxyaalaha gurmadka lagu sameeyo in laga macnaha la hagaajiyo oo laga shaqeeyo sidii gawaarida macnaha meelaha maamulka oo lagu sameeyo for example like emergency operation centers oo kale in la hagaajiyo waa in infrastructure la hagaajiyo macnaha jidadka oo kale waa in laga hortaga marka mid kale municipality-gana waa inay ka shaqeeyaan meelihii macnaha biyo mareenkii inay wasaqda laga bixiyo waqtiyaasha oo ay jiraan fatahaadka iyo musiibooyinka marka arrimahaas intaas yaan maanta ka hadalnay waxaana la joogay maanta oo meeshan shirkan ka qayb qaatay speakerga Garissa County ayaa asagana nala joogay dowladda waa laba dowladda executive-ka iyo speakerga marka shirkan waxaa noo furay speakerga asaga naftiisa noo furay marka arrimahan ka qayb qaadana waa taas assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa dhinacayga taagan afayeenka baarlamaanka ismaamulka Garissa mudane Cabdi Iidle oo dabcan isagu ka qayb galay shirkan muhiimka ah ee ka dhacay magaalada Nairobi kana mid ah mas'uuliyiinta Garissa ku metelayay shirkani afayeen aad baan ku soo dhaweynaa soo dhaweyn kadib bal shirkani maxaa ahmiyadaha oo dadka reer Garissa u leeyahay ka qayb gasheen waa mahadsantahay wariye ilkaase waad mahadsantahay su'aasha aad weydiisay maanta wuxuu ahay shir maartay loo dhan yahay oo maartay ka qayb qaateen dowlad goboleedka dowladda sare iyo kuwa deeq-bixiyaasha ay ka qayb qaateen bay ahayd waxaana muhiimadda markaan soo koobo looga hadlayay maartay falkii looga bixi lahaa maartay inay waqti kasta maartay ay umaato masiiba haday noqoto maartay fataaxa maartay wabiga ama maartay biyaha ama ay noqoto abaarada noqoto sida looga bixi lahaa maartay in gacanta kuwa maartay hay'adooyinka samafalka ama kuwa deeq-bixiyaasha gacantooda in maartay la horsado oo arinta iyada loo dhiibo dawladda oo noqoto mid dawladda hogaamiso because dawladda sharciga Kenya wuxuu leeyahay dadka ama maartay shacabka waxa mas'uulka ee dawladda so waxa la fiirinayaa intaas oo sano kadib in laga baxo maartay ama laga wareejiyo mas'uuliyadda ay maartay loo dhiibay hay'adooyinka ama kuwa samafalka bixiyaan ama kuwa deeqda sameeyaan in ay dawladda ku soo wareejiyaan oo noqoto mid maartay dawladda sare dawladda maartay countiga ama dowlad goboleedkii ilaa iyo deegaamaha u hoosay maartay xaafadaha u hoosay inay ka qayb qaataan oo noqoto mid dadweynaha dantooda iyo baahidooda ay soo bandhigayaan oo ay ka qayb qaadanayaan aysan noqon leeyahay mid ay gacanta horsanayaan wayahay maadaama caqabado badan ama challenges fara badan halkan lagu soo bandhigay oo ah yani xilli kasta oo ay abaaro yimaadaan ama fatahayo yimaadaan inay saameyn dadka ku yeeshaan yani hadda halka la gaaray muxuu yahay ee looga bixi karo dhibaatooyinkaas soo noqday walaad hal oo maanta dhigi karo halkan baa looga baxaya dhibaatooyinkan maartay marxaladaha taagan ma lahaan laakiin waxaa la isku dayayaa in maskax la isu keeno ay noqoto in dawladda goboleedka iyo dawladda sare ama dawladda maartay national government ama qaranka inay wada shaqeeyaan sida badan waxaa dhacdaa inay maartay wada shaqeyn oo maartay aysan jirin oo mid kastaba gaar u sameeynayo waxa la yiraahdo duplication of maartay efforts kaba so in maartay hadafkooda iyo hiigsigooda iyo hantida loo hayo maartay in la isu keeno sida maartay ay ku mar lahayd mid kale in sharci la hagaajiyo aniga hadaan ahay afayeenka baarlamaanka Garissa waxa hadda xilliga saaran inaan la sameeyo shuruucda maartay ama maartay ilaalinayso shuruucda horta maartay abaabulayso ama sameynayso waxa la yiraahdo disaster risk management ka hortaga iyo maartay caawimaanta markuu yani si looga hortagi lahay maartay masiibada iyo sidii maartay gurmadka loo geyn lahay waqtiga ku filan sida maartay lacagta ama maartay wuxuu ay maartay raasil maali maartay ama dakhli loo qoondeeyo oo khaas loo qoondeeyo emergency response ka asaga inay wada shaqeeyaan laamaha dawladda ayaa hadda maanta go'aan lagu gaaray ay dadweynaha ay noqdaan maartay xubin muhiim ah oo baahidooda
ay maartay ay ka lagu jawaabaya waayahay Garis iyo Nairobi iyo Marsabit ayaa dabcan shir ka qayb galay marka maxaa lagu doortay countiyadani county badan baa jiraan of course waxa la yiraahdaa sampling qaar baa la soo qaaday laakiin laba report baa la kala sameeyay waa maxaa la sameeyay research labada research la sameeyay researchka laba report buu ahay oo ku saabsan yani xaaladda say tahay oo ma inta sano ah oo maartay dhanka masiibada iyo si looga hortag lahay iyo maartay gurmadka iyo maxaa laga qaban karaa way sheekada soo gobollo badan baa la sameeyay researchka uu maray Garissa kamid ahayd Isiolo baad kamid ahayd Turkana baa kamid ahayd Marsabit baa kamid ahayd laakiin at least maanta maadaama kudigood ay ka soo qayb gal karin qaar ba kamid ah loo yeeray sampling waxa la yiraahdo maartay laakiin maadaama la soo bandhigay reportka asaga reportka la soo bandhigay reportkii baa maartay ay hadda sida lagu fulin lahay waxyaabaha ka soo baxay maartay بعد كم مرت أما رسالة كاسة. وايد شركة ما أنتوا كويس مس وسيسو عندنا. ريسك ما أنتوا كويس هل مالنا بوهاي لكن وجد صعد ومارت وبالله وجد صعد دار وشكذا إذا إلا يصير لقوا فلين لهاي وحيابها كصبح وحيابها لا أركي إن المارت مهم تاي سيد مارت لوجه لهاي وحلي رادو أفقلت من جريسك وحلي رادا عدنا صوكبه moving from reactive to proactive يعني مركز طبعا يعني إن نسوقنا سنة كستوى نكسونها إنه دعاية أو أربعة دعاية أنا ربع دعاية أو أربعة دعاية ربع دعاية إن نسوقن إلو مارت أي مصيبة ده أي نسوفر صارته أما يدعضه وإن لقت شده وإن مارت عليه كورتها وإن أففار لهانو وإن قرش لهانو وإن مارتي دخلي أن مارت أن دخلي لو قبته ما لو دقو إن ما ملو يلو برلمانك goboleedka si Garis kamid door bay leeyihiin door muhiim bay leeyihiin inay dawlad goboleedka ama executive ama qaybta maartay fulinta inay maartay doorkooda qataan waxa la yiraahdo oversight because waa rag la soo doortay oo loogu doortay inay maartay midalan kumanaanka reer Garis ay ku midalan waa inay sharcigooda maartay shuruucdii loogu talagalay maamulka idii ay sameeyaan inay maartay ay dadka midalan iyo inay ilaaliyaan maartay hantida dadweynaha aad baa ma saddex